قدر وحي عسوات وفيدسي شيقا iyadoo dawladda Hindiya isku dayday sumcadiisa inay wax u dhinto waayo sheeqan wax lagu yaqaan meeshu istaago ka qudbayaba intaas oo kuna qofood inay ku soo muslimaan doodo waaweyn oo ka galo kadibna waxa la rajeenayaa insha Allah koobka furitaanka koobka adduunka inuu qodbad ka jeediyo dad badan ayaa la rajeenayaa inay ku soo muslimaan biidillah sidoo kale tood waxyaabaha qadar ka dhacay waxa kamid ah oo inta badan dadka muslimiinta soo jeetay wiilkan wuxuu wareegay xilliga salaada fajrka aadaanka salaada fajr iyo xilliga la tukanayo ayuu la yaab marka uu double fiiriyo xilliga ay soo kaceen xilliga isku yeerayaan xilliga cibaado istaagayaan bal fiiriyo aadaanka macaankan bal fiiriyo dareenkan yar degan bal fiiriyo uu dhahay uu garanaysa run ahaantii arimahaas oo wanaagsan waa waxyaabaha muslimiintu ay khaaska u leeyihiin laakiin iyagu in badan oo kamid ah isan garaneeynin ama isan ku baraarugsaneen dhimcada agtooda taalo sidoo kale xafladan iyadoo marka xafladii socoto ayay maqleen aadaanka kadibna waxa la dhahay marka hala joojiyo aadaanka salaada ayaa socoto waxaan isku soo laabaneynaa salaada aadaanka kadib laakiin ma hubo inuu dhahay ordaha soo dugto waxyaabaha kale oo cajiibka ah waxa kamid ah waxa la leeyahay isla hadeertaan inta la furin koobka adduunka waxa soo muslimiin dad 500 kor u dhaafayo ayaa qaatay diinta islaamka wax lagu farxo xaqiiqatan waayo waxa jiro dad loo sheeka warraba waa jiro wadamada islaamka weligood aan booqalin oo intaas loo sheegay kaliya xumaanta dadka muslimiintu dadka dilaan way isqarxiyaan hablaha cabiidsadaan waxyaabo looga sheegi jiray laakiin markay baxeen ay tageen dalka qadar waa la soo dhaweeyay markaa bay waxay arkeen dad deeqsiyaal ah oo soo dhaweynayo hoo timirta hoo kafeega hoo qaxwada hoo casiirka hoo caanaha dad wax siinay bay arkeen inta wadamadan jeebka gacanta la geliyaa waxa kasta halka ay ku qoran tahay hal xabad timira way ku qoran tahay beeca inta la galo garanaysa laakiin waxay arkeen dad deeqsiyaal wax siinay bay arkeen sidoo kale waxay arkeen dad yaani deganaan iyo salaad iyo cibaado iyo istislaam bay arkeen marka waxa dhacday fikirkoodii inuu isbedelay sidoo kale dad madaxweynaha FIFA isagoo la hadlayo reer galbeedkii gaalada wuxuu ku dhahay joojiya casharada akhlaaqda aad inoo soo gudbinaysaan muhaajiriinta agtiina ku dhiban kuwa wax ka qabta وانا حقيقي وير قلبتك قالدا waxay nagu cadaadinayaan inaan aqbalno kaniisada shucuurtooda ilaaliye bay dhahayaan laakiin iyaga ma ilaalinayaan shucuurta malaayiinta muslimiinta ma ilaalinayaan nabigoodi ku xadgudbayaan markaa bay waxay dhahayaan waa xurriyatul qowl kadibna hablaha muslimiinta xijaabkooda ku mashquulsan yihiin dadka muslimiinta diintooda ay tashwiih badan ku hayaan wadamada islaamka ay dhibaato badan u geysteen inta ayaga ma arkaan laakiin waxay arkaan oo kaliya kaniis fiidiyogan xalaban arkay gabadhan arjetiinayska waxay weydiinaysaa nin carab ah inuu sacuudi yahay baan u maleynaya insha Allah waxay weydiinaysaa meeqad u maleynaysaa ciyaartan uu ku dhamaanaysa marka buu ku dhahay sacuudiga ayaa saddex ku badinayo iyadoo marka ku jeejeesayso waxay dhahday yaani nin weyn iska dhig micna saas loo ma hadlo micna qofka wadana waa Messi ma garanaysa anaga Argentina baan la dhahaa idinkuna sacuudiga yaani marka habaan waxaan isdhahay wareenantaan rag saas ugu jeejeesay ma joogtid waxaan waa rag wax kasta ka dhalan kare arbi maanta ragii way durduuyeen Soomaalida waxay dhigi jireen dhikii ku dhaho dad xume waxa la dhahaa dad laawe maanta Messi waa dalaan keligii boobesha taagnay garanaysa ciil baa qabtay meelo wax ka bilaabayo garan waayo asaga dhawaa la circirayo marka baa la waayay meelo ka bax wal raadiyo garanaysa almuhiim dalka sacuudiga maanta ma sha Allah waxa leeyahay guul baa